horena waxaa jirtay in lagu eedeeyey wasiir maareeye in suldaankiisa uu afduubtay arrintaasi waxaa beeninayo oo suldaankii oo hadlaaya ayaan idin haynaa oo arrintaas beeninayo dhahayana aniga ima afduwanin wasiir maareeye aniga ima afduwanin suldaankii oo dhahayo ayaan idin haynaa aabow suldaankii oo dhahaya lima afduwanin ani haynaa waxaana soo diyaarisay noo akrinaysa meeshaana ka soo jeedinaysa waa warisadeena aamino macow cabdulle suldaanka iyo waxyaabaho yiri ku soo dhawaaw xiliyadan doorashooyinka markii la gaaro odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta aaday u soo dhaweeyaan balse isbuucan arrintaas arrin ka duwan ayaa dhacday haddana waxaa dhacday wasiirka warfaafinta Soomaaliyeed ayaa wuxuu ka dacweeyay boqorkiisa CID-da xarunta dambi baarista arrintaasna waa arrin la fajaco xataa wasiirku waxa uu doonayaa inuu xildhibaan noqdo wasiirka warfaafinta marow boqorkiisa oo eedaynta u jeedinayay bal nala fiiriya ama nala daawada maanta waxaan halkan u imi xarunta CID-da anigoo aaminsan sareynta sharciga iyo dalkan inuu leeyahay nidaam iyo kala dambeyn waxaan u imid anigoo muwaadin caadi ah oo dacwo ka ah mid kamid ah oday dhaqameedyada beeshayda oo si mu'aamarada iigu eedeeyay anigoo wasiir inaan suldaan afduubay iyadoo aanu jirin sida la og yahay suldaan afduuban dhanka kale eedeemo ayaa loo soo jeediyay wasiirka warfaafinta oo ah in uu suldaankiisa taxaabay hase ahaatee hay'adda qaranka nabad sugidda ayaa waxay soo bandhigeen suldaankii lagu eedeynayay in la xiray suldaankina afkiisa wuxuu ka cadeeyay inuu hotel degan yahay cid bini'aadan oo xirtay ayna jirina nabadiisana uu qabo suldaankii oo afkiisa ka hadlayna balna la fiirsada ma jirto runtii waxa uu dhowr jeer la soo celceliyay ma garanaysaay in ay afduubteen hay'adda nabad sugidda iyo ciidamada amniga arrintaa waxa weeyaan waxaan leeyahay ma jirto waxaa dhamaaday hadeerto wixii la oran jiray afduubka wadanka uu ka dhamaado sidiisa sida aan qabo sidaas ayaa runtii jirta waxa weeyaan waxa loo gudbay heer qofka Soomaaliga ah uu leeyahay xuquuq iyo waajib waxa la hormarinayaa xuquuqdiisa qofka Soomaaliga ah waxa weeyaan qofka Soomaaliga ah wuxuu maanta uu xor u yahay oo uu xaq u leeyahay inuu u shaqeeyo naftiisa wadankiisa iyo ummadiisa runtii waxa weeyaan ciidamada amnigeena waxa weeyaan in la xad ayaan dhiirigelinaynaa waxaan balyeynaa ilaahay baan ku mahadinaynaa in maanta amnigeena uu noo soo noqday oo maxaan ku dhaahday ummadda Soomaaliyeed cadaalad loogu kala xaq qaadayo oo ma garanaysaa isjacayl iyo walaaltinimo